maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa laba qodob oo kaliya balanka mid saxda yahay keen Soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaadnimada u galeen ee shacbiga Soomaaliland gaaray 18 May 1991 inay ixtiraamaan kaliya ayaan ku heshiin karnaa laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliland ee qiraan inaynu nahay laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasbin oo frontier ah maantana si xor u kala baxay waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta haba xun madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri raalgelin baan laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waan imanaya hargeysa oo sideebuu ku imanaya la isku diinay sideebuu ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiya aan galeen ayaa dadku waxa u geysay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaarinaya Soomaha waan imanaya maclu soo wada soo inta maaha oo taa meenu aqbalaynaa maya suurtagal maaha ma yeelayno suurtagal ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabad qaad raalgelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqlida ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno inay af laga yihiin oo ku siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad ayna u baahnayn oo birawa markaan soo koobo hadal haynta leeyahay wuxuu imanayaa Soomaaliya imanaya buuri madaxweynaha Muqdisho anu wax kale oo garagaran maaye aan ku cabiree gabayga faaraxuna kala gooyin baa arinta ka jawaabaya faarax wuxuu yiri qosol beera foolal qayaxan qiilan garanayo boorana fi laga qafilay qabarna hoos yaalo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigan maariga mid laga qarshaa laygu qali doono qoontiiba laba baananine qarayara nabadu waryaara kala quusanaya qomamalaada